جزاكم الله خيرا وإذا أبراك إلى نوام فوق maanta waxa weeye maalin weyn maanta waxa weeye 18 May oo maalin aad u weyn maalin qiimo badan weeye dhammaantood waxay doonaynaa inaynu faraxno oo aynu ku dabaaldegno 18 May waa maalintii qaranimada Soomaaliland waa maalin ugu weyn daliya dowladdu waxay doonaynaa inaynu xusno waa maalinteedii waxa weeye qadiyaddeena inaynu meel kasta joogno aynu ka muujino oo aynu ku faraxno maalinta 18 May ومالك بالعرض وحضر يعيها كدرو قرن كينا ومصمري مرحلات بدل مصمري ركبوا حكسوا بالعافية عملها وسط ما أنت لها القمرة والعود نهي هل كان إلى نفس السعوديين الدولة إن شاء الله كل كينا مرحلات بدل مكتشراء أنا أمس أفضل أنا أمس وحوية ومعلوي ومعلم تستاهل 20 May dhammaan shacabka reer Soomaaliland daliya dibadda waxaan leeyahay 18 May farxada lagu weydiino meel kasta lagu xuso daliya dibadda waxaynu leeyahay aynu farxad ku wada ciidno qarannimadeena aynu meel kasta aynu Soomaaliland ka muujino calankeena kor aynu qaadno intaa waxaan ku darayaa dalkeenu wuxuu ku jiraa xaalado fara badan ku jira xaalad siyaasadeed iyo mid colaadeed iyo ku jira markaa waxaan horeysiinay afar qodob baan doonaya halkan inaan kaga hadlo afarta qodob baan doonaya kaga hadlo waxa weeye hore waa taqarnimada Soomaaliland qof walba waa ku weyn tahay waa taa aynu calankeena wada sidano waa maalin ugu weyn waxaynu doonaynaa halkaa aynu joogno inaynu kasii soconno oo nin kastoo inoo yimaado qarankeena hogaaminaya oo meel fiican la gaarsiiyo markaan ka yimaado waxay nagu xigtaa xaalad siyaasadeed waddankeenu ku jira oo xisbiye leh oo waxaan ku colaad leh markaa waxaynu doonaynaa inaan marxaladaha kaga baxno inagoo isku duuban oo wada jirna inaan taa kaga baxnayn doonaa insha allah haddii ilaahay ka dhigo iminkana waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo guddoonka madalka yidhaahdo iminka waxaan doonayaa inaan insha allah aan inoo shido heesteen iyo calanka aynagu qalanka yahay insha allah iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa iibjiga si ugu shido heesta calanka